ilma adeera waa idin baryaaya idinka afayeen iyo noqda waa idin baryaa afayeen iyo noqda oo meel walba aad tagtaan hala ii hadlo meel walba oo been la iiga sheegayna hala iiga hadlo waa idin baryaaya ii hadla kaliya wax kale idinka ma rabo beenta la iiga sheegayo shalay waa la igu safaada beena la iiga sheegay waxaa la yiri ummad Soomaaliyeed caawinayay wax ka samaystay maalinka dhaawacmana isla ayagiya waxay lahaayeen dadkii uu caawiyay shalayba waxaa la heedeen dad maada caawin maanta maxaad u leedihiin dad uu caawiyay maalinka dib isoo gaarana ooyin beena leela ooyaya maalinka aan yar aan neefsadana maalinka yar aan neefsadana waxaa leela raadinaya ceeb aanan lahayn aniga leela raadinaya waa idin baryaaya beenta la iga faafinayo walaalayaal idinka afi ah idinka maanta afayeenaya idinka ii hadli kara waa idin baryaaya inta asaas Soomaali iiga soo tagay fiisa u soo gooyay isbitaalan ka soo wada baxnay gurigan ku wada nooleen asiga iga soo dhuuntay oo Istanbul yimaaday waxa idin qiraaya waalidkiisa xataa telefoonka ma qabto oo hooyadiisu telefoon ku dhageysta hooyadiisa ku dacweeyo u sheegay hadalka markuu isoo gaaray hooyadiisna waxay qiratay inuu telefoon uu ka qabanin uu telefoonka uu ku dhageysanayo waa idin baryaaya meeshaad ku aragtaa waalidkaaga la hadal ku dheh waalidkaaga la hadal hooyadaada telefoonka ka qaba kaliya loo qoro waa idin baraya intaas bis afayr igu noqdo hadi salaama insha Allah salaamullah in yariis aan ku neefsadaan helay in yariis aan ku neefsado aan helay hadalkan hadda aan dhahay xataa wallahi surkaasa ila xanuunaa ilaaha ila og wallahi billahi surkaasa ila xanuunaa garab waa xanuunaya oo garabka saayid u xanuunaya waa idin baryaaya idinka afayeen iyo noqda waa idin baryaa afayeen iyo noqda oo meel walba aad tagtaan hala ii hadlo meel walba oo been la iiga sheegayna hala iiga hadlo qof walba oo isku dayay oo aniga been iiga sheegana waa idin baryaaya anigu hadda kama hor dhacaayo kama sheekeenaayo laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay rag basaasiin ah oo cadawga u shaqeeyo in ay ku jiraan social media sida TikTok, Facebook, YouTube ba intuba inay ku jiraan sida aniga aan dawladda ula shaqeynaayo ayaa sidaas si lamid ah cadow waxaa jira la shaqeeya dad caan oo la shaqeeya cadawga nacamleeyana oo ah oo basaasiin ah ayaa jiraan ayaguna laamaha amaankana waa la wadaagna waana la wadaagi doonaa insha Allah intaas haddaan ka tago tan koowaad waxay tahay waxa soo hadlay Mawlid oo sheegay in aan anigu u diiday tigid ilaahay kuma samdaraade magaaladiina Istanbul uu joogo kuna dhibaataysan yahay horta haday noqoto dhibaato labadeena dhibku waana wada qabnaa oo aniguna waa dhibaataysanahay isbitaalan u baahanahay caafimaadkaygu wali waxba ka dhiman sidii aan ku soo baxan wali dadan dulsaar ku ahay oo meel ma degani muhiimada marka waa inta tan koobaad waa ka soo baxna tan labaad waxaan rabaa inaan idin faahfaahiyo idin waydax si waadax ah idinku sheego arinta meesha ka jirto wiilka dhahayo bilaala tigid ii diiday waxaasayt waxba kama jiraan aniga bilaala iyo familkayga iyo ummadda Soomaaliyeedba waxay ka wada dharagsan yihiin ninkaasayt tigid inaan u gooyay tigidkiisa u go'ana inuu tigid soo goostay uu soo baxay sababaha uu soo baxana waxa waaye dadkii shalay aan sariirta ka saarnaa waayay oo beenta iyo qubxiga iga daba waday oo aflagaadeynayay oo shalay soo basaasayay meesha aniga aan fadhiyo in lay dhibaateeyana raali ka ahaa ayaa ka dambeeyay ninkaneeti inay tigid u gooyaan kana dhaadhiciyaan in uu dhinaciisa kale uu lacaga ka aruursado si uu hanti kale oo u helo xaqiiqada jirta waxay tahay anigu waa sax waa soo fariista waxaan iraahday hala isoo caawiyo waxaan u baahanahay caafimaad dibadda ah wixii la ii awood halleegu soo taakuleeyo waxaa jirtay leef ah aniga iyo walaalkay Ayub Karla soo wada fariisanay leefkaasna waxaa iga soo gaartay lacag 5,000 ah 5,000 markii laga gooyo serviceyada iyo waxyaabaha kale oo ka go'aayo waxaa si toos igu soo gaareysay lacag 4,000 iyo jajab ah alxamdulillah 4,000 iyo jajabna waad ogtihiin dad isbitaal ku jira
ilaahay kuma daraade u baahan service u baahan wax walba u baahan waa dareemi kartaan waxa kaga filnaan kara 4,000 iyo ama waxa kaga soo hari kara waa dareemi kartaan qofka aqli leh ayaa ogaan kara $4,000 inay waxba tareenin waxa jirto linki aan sameeynay oo qof walba yiraahdo waa ku soo caawinaa meeshaas wax ku dir aan dhahaynay oo GoFundMe la yiraahdo GoFundMe-gaasna lacagta soo gasha si live aad u arki kartaan profile-kaygu saaran waad ku dhufa kartaan GoFundMe-gaas lacagta ku jirto waa lacag $1,000 iyo $200 waa $1,200 ku jirto haday ugu badato waxa naga soo gaari laana waxay noqon lahayd $1,000 ilaa $900 naga soo gaari inta kalena canshuuro iyo waxay ku go'go ilahayd iyo taaj iyo waxyaabo noocaas ku go'go ilahayd cilada keentay in ninkan uu hadlana waxay ahayd lacag yarida oo anaga inaana waxba meesha aanan ka helin ayaa waxa keentay in fursad looga sameeyo oo la yiraahdo ninkan haduu waxba uusan helin adiga lacag sameyn kara ee waxaad sameysaa sheekadaas abuur ninkaniti horta xaqiiqada hadaan idin sheego cid wax u diid horta haba yaratay ma si jirin anigana kama soo tagin asiga iga soo tagay oo anoo gurigeyga joogo oo wada joogno wada sheekeysanayno waxba naga haleysnayn ee dhalinyaradu nala wada joogan ayuu baasaboorkiisa qaatay wuuna soo baxay حتى دور مرة وحن اسكو داي inaan raadiyo waan daba kacay waan wacay wuxuu yiri waan daneysay dantaada raaco dhalinyaran u diray waxay yiraahdeen ninkaas tigiduu goostay bilaalo tigidkaaga kansalo tigidan ani u gooyay aan haayay tigidkaaga kansalo ninkaas tigiduu goostay danta laga lahayna intaas ay ahayd waxaan u diray dhalinyaro kale oo la deganaa jiray waxay ugu yiraahdeen isla hadalkii igu soo sheegeen hooyadiisan u tagnay hooyadiis ayaan u tagay waan u sheegay arinta jirto waxayna ii sheegtay hooyo qeyr Allah siiye waxay igu tiraahday waa ku imaanaya qaladkii uu geystana asaa ka soo laabanayo wuuna ku raali gelina hooyo iyada afkeeda iga tiri mana been ka sheegi maayo hooyo dib malaha ku dhahay ninkaas tii shalo isla dhaawacnay isbitaalka ka soo wada baxnay maantana inaan kala harna ma aqbalaayo wixii dhacaano waa inaan israacnaa annagoo intii isku og ayaa waxa dhacday xaafadida iska imiday habeen maalinkii labaad adi war waxa soo gaaray inuu bixi doono waxaan raadiyay dhalinyaradii kale ee ugu dambeysay la joogan raadiyay waxay ugu yiraahdeen annagu xalay noogu dambeysay mana naqaan meel uu aaday aan ku imiday horta tan tigidka oo tigid la ima jarin ah halkaasiti ha iiga harto waxyaabaha ugu badan oo ku andacoonayna taasay ahayd tan lacagtana waa idinka jahil bixiyo lacagtana soo gaartay lacag 4,000 ah oo naga soo gaartay TikTok-ga oo 5,000 ahayd markii laga googooy waxyaabaha service ka baxayo lacag 4,000 toos ii soo gaartay iyo lacag $1,000 oo linkigaas qofkii soo wacay iigu diray andhahay oo linkiga ilaa ay hadda ku jirto wali aan laga soo saarin hunguri weyninka meesha waxa keenana waxay tahay rag caana iyo gabdho caana oo muqdisho ila degan ayaa sheekadaneeti ka sameeyay dadkii shalay awoodi waayay in ay sheer gareeyaan muuqaalkeygii aan soo dhigay ayaa maanta waxay asiga ka dhaadhicinayaan inay caawinayaan wayna luminayaan ana hadii idin sheegay ninkaneeti mawliidka ah kow maalinka hooyadiis aan u sheegay markuu baxayay hooyadiisa soo wacday taleefankoonu ku dhageystay hooyadii maysan ogeyn maalinkuu soo baxayay waalidiintiisana maysan ogeyn maalinkuu soo baxayay oo cadeynteedan haayaa oo waa idinku markaati furi karaa wax walba muhiimaduna waxay tahay in waxa meesha yaalo la isku qanciyo si walba aan u raadiyay oo aan u wacayna taleefanka uu iga qaban waayo ugu dambeyn aniguna waan xanaaqay sidii aan uga aamusay markii aan arkayna inuu soo baxana kadib ayaa tigidkii cancel gareeyay alxamdulillah hadda Turkiyaan imiday sida uu asiga maanta ugu baahan yahay in la caawiyo ayaan aniguna ugu baahanahay in la caawiyo garab istaag rasmiyana ana maanta u baahan in la garab istaago dibka meesha ka jirana waxay tahay in dad ay ka dhax shaqeynayaan arinkan qof walba oo ka shaqeynayana waa is yaqaanaan saddex magac oo Ilaahay ku dhaaranaya dadkaasaytii waa dadkii ka dambeeyay soo basaasay halka aan joogay kana dambeeya in maanta waxaan beena iyo mala awaalka ay soo dhistaan anigu ninkaasaytii lacag kama qaadan
lacag la soo diray oo aan nuusaday ma jirto wixiina caafimaadkeena qayb kamid ay ku baxday iyo nolosheena caadiga ahayd haddana aniga u baahan in la isoo caawiyo oo la isoo taakuleeyo aniga maanta u baahan dadka maanta dhahayaan leefan soo istaagayna waan caawinaynaa sidaan ka yeelaynaa waa dadkii shala aniga xaqiray waa dadkii shala aniga ilaahay kuma soo daraaday waad ogeydeen muddo adiga laga soo wareegay 6 bilood ka hor waa la iska kaybeen abuurtay maraa waxa la yiri ummad masaakiin oo wuxuu dhacay saan way dukaan uu ka furtay hebelow ka samaystay inay been raad lehen waxaad ku ogaanaysaan habeenkii aan dhaawacmana isla ayagiya waxay lahaayeen sadaqa furatay ducadii dadka ilaahay ku badbaadiyay yuu yahay qofka tuuga ah ee ducada ku badbaada yuu yahay waxyaabaha kale muhiimka in la xaqiiqsado oo muhiimka ay tahay waxa kamid ah waxay leeyihiin waxa badbaadiya asiga ilaahay kaalintiisa qof bila aadan hasiinin aniga alla i badbaadiyay ilaaha ii saqiray intaan aan soo noolaado ducada waalidkayga iyo ducada ummadda Soomaaliyeed intaan ku soo gaaray qof bila aadan oo i badbaadiyay maysan jirin bastoolad muu haysan kuma soo rideenin isku intuu soo boodo iskuma dhigin xabada marka xaqiiqada ilaahay kaalintiisa qof bila aadan walaalayaal hasiinina ilaahay ka cabsada kaalinta ilaahay qof bila aadan hasiinina ilaahay baad xaqiraysaan ad leedahiin qof baan caawinayna allana way xaqiraysaan ilaahay xaqiraada ka daaya beenta iyo propagandada iga faafinaysaan ilaahay ka cabsada qof xanuunsanaan ahay sariirta ay idinka jiifi karo ay idinka nasa karo aniga u baahan maanta inaan nasto hadalka farabadan la ii ogoloon anigu xabada bartaas iga soo gashay bartaas xabadu iga soo gashay hadaad arkaysaan bartaasina ka baxday xabadu halkaas iga soo gashay halkaasina ka baxday dhuunteyda ayay xabadu dhaxmartay cidaan ogeyn hadda ha ogaato bartaas iga gashay bartaasina iiga baxday sabab kale ima badbaadinay ku xirnaashaha alle iyo ducada waalidkayga xataa hooyadiisan ka duceystay iska daa wax kale hooyadiisu asiga uu ka habaarsaday aniga ka duceysto ka soo duco qaatay oo asoona soo macsalaameen ana u tago macsalaameen ka soo qaatay ee ii soo duceysay oo duco uga soo tago oo ilaahay ila ogyahay ma fahmaysaa waxa soo waalaya ee soo cararsay tahay waxa soo waalaya uliza thank you waxa soo waalaya oo soo cararsiinayna waxay ahayd كانيتي وحو سو آدايي نينكو مربو إنان عيبيهيسا يابيهيسا كان إنان صيفا في مربو إنتاسان وهرايا قف والبو أو صوماليات أو إسو عاوين كرا أو مانتي إقرب استايي كرا إقو قرب استايي كرا إنان مانتي إسبيتال آن تغو آن إسي صوب بارو إقو قرب استايي كرا مانتا الله كجا اسمريو الله أو أبال قدو وان أمهد علينا walaalayaal beenta adiga faafinaysaan maanta anoo isbitaal u baahan oo guri aan dhalinyaro saaxiibada dulsaar aan ku ahay dadka maanta beenta iga abuuranayaan ee rabaan in ay iga samaystaan wax aanan aniga ahayn iga samaystaan rabaan ilaahan ku daayay rasuulkiisan ku daayay 7,000 ee daawanaysa waxaan ka codsanayaa maanta idinka ii afayeeno maanta qof walba ani uma jawaabi karo qof walba inaan soo istaago waxba uma sheegi karo maanta idinka afayeenay idinka codsanayo wallahi intaan hadlahay halkaasan ka daalay ilaahay ila og halkaasan ka daalay waxa idinka codsanaya inaad afayeena ii noqotaan oo meel walba intaad istaagtaan ii hadashaan ani ma awoodo maanta inaan meel walba soo istaago oo arintan aan ka hadlo ma awoodo teleefankeyga inta badan la iga ilaaliyaa oo caafimaadkeyga awoodiis la iga ilaaliyaa waa idin bariyaa maanta aniga oo baahan caawimaad beenta iyo propagandada iga sheegayaan fanaaniina ugu horeeyaan fanaaniinta ugu daran fanaaniinta muqdisho joogo alla iyo rasuulkiis ka furtay aan sujuud dhihin oo kaafiriinta ah oo ilaahay aan ka baqin ilaahay wax baryaaya qof walba oo daawanayso qof walba oo ii sheer garay karto qof walba meel walba gaarsiin idin baryaa idinka maanta afayeenay
idinkaa maanta iyo hadli kara aniga ma awood inaan meel walba soo istaago anigu intaana iiga eg tahay ninkaasita anigu ma xumeen asiga ay xumeeyey anoo gurigeyga asoo ku nool baasaboorkiisu soo xaday wuuna soo baxsaday asigaa baxsadoo hooyadiisu taleefanka ka qaban layahay qof hooyadiis aan ixtiraamayn oo hooyadiis aan taleefan ka qabanaynin ayaa wuxuu ku leeyahay waa la isaana la iga yeelay waa la ixaqiray hooyadaa ayaad xaqirtay hooyadaa ayaad xaqirtay qof waalidkiis waxba ugu oolin aniga bilaal waxba iiguma yaalo maanta anigu $1 ma awoodo aniga caafimaadkaygu u baahan inaan is soo daaweeyo insha Allah aniga intaas hadda ku ekeenaya 8,000 waa idin barya waa idin soo duceyna aniga waa jeclaalaha inaan afayeen idin noqdo waan jeclahay inaan idin hadlo waa jeclaan lahaa maanta ma awoodo inaan hadlo maanta ma awoodo meel walba inaan soo istaago 9,000 waxaa ii ah ergo 9,000 waxaa ii ah dadkii aniga iyo hadli lahaa 9,000 aan idinku kalsoona waxaa idinka codsanaya idinka ii noqdo afayeeno idinka ii noqdo meel walbo la soo istaago bilaal been looga sheega idinka ii hadlo waa idin baryaaya idinka ii hadla waa idin baryaaya dad baa iga been abuuranayo dadkii shala sariirta isaaray kaga sii jiifi waayay magaalada Muqdisho intaan ka soo baxay isugi waayay ayaa dhibkaaneete iyo beentan iyo bandadan maleega waana ka daba tagi doonaa insha Allah waa ka daba tagi doonaa laamaha amaankana way baarayaan waa basaasiin al-shabaab la shaqeeyo ana hadda idin sheegay waa basaasiin ilaahay aan ka baqaynin oo kaafiriin ah oo ilaahay aan ka cabsanaynin oo sujuud aan dhihin waa fanaaniin wiilal iyo gabdho isugu jiraan waa youtubero waa tiktokero intuba way isugu jiraan intoodana waa ka daba tagayna insha Allah waana ka adkaanayna hadoo alla idmo sida ay dhibaateeyeen ilaahay waxaan ka codsanayaa ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryaa dadkan kaalintaada dadkan kaalintaada yasaayo oo dhahayaan ilaahay ma badbaadina bila aadana badbaadiye meesha la soo taagan ilaahay la xisaabtan ilaahay rabbi rahmaan oo la xisaabtan ilaahay rabbi rahmaan oo la xisaabtan ilaahay rabbi rahmaan oo la xisaabtan Noel, thank you. Thank you, Noel. Thank you, bye. Waa mahadsantahay. Harkaba, thank you. Thank you, Harkaba. Thank you. Waa mahadsantihiin dhammaantiinba. Intiin waa mahadsantihiin. Dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa. maanta ana garab istaag u baahan maanta aniga u baahan in la ii hiiliyo maanta in layga been abuurto lay daba socdo naruurada yariista ee aan helay leerta yariiska aan soo qaatay ayaa waxaa la rabaa in aniga cubka laygu sii celiyo laysii aamusiyo shalay markii ummadda Soomaaliyeed abaartu ee ku dhacday waxaan anigu garowsaday inaan afayeen u noqdo waxaan garowsaday inaan dartood aan u dhafro waxaan garowsaday inaan u adeego tiya ilaahay igu badbaadiyay maanta waxa layga daba cararaya waxay tahay sababtan wax kale ma aha dadkaas hadda idin sheegayo markaan wadada aan isla mareyno waxay arkaan darajada ixtiraamka wanaaga askariga wadada taagan sida fadhiga la igaga wada kacayo ee lee wada istaagayo leeyahay madaxweyne darajadaas aad qof walba ii diidan yahay waxa la ii diidan waa darajadaas waxa layga hor imaanayo waa intaas naruuradaas iyo leertaas riista oo ilaahay isiiyay ayaa la ii diidan yahay waxa la leeyahay bilaal soo anaga nooga horeyn karaa bilaal soo anaga saan nooga yeeli karaa bilaal soo maanta waa sax
dhammaantiin waa mahadsantihiin insha allah mar kalaan isku imaan doonaa